waxaan runtii ka cudur daaraynaa habsalka aynu kulmiye habsalka dhacay waxaa runtii laba shir baa halkan loogu talagalay shir wuxuu ahaa inuu bilowdo muxuu ahaa 12kii haddana uu dhammaado balse dee may dhicin mudane axmed carwo la taliyaha madaxweynaha xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha sore dhaqaalaha waa siyaasaddu ma ku jeclado siyaasadda marka dabadda joogno aan siyaasadda wada sheekaysanayo gudoomiyeyaasha golaamaha kulmiye ee UK guddiyada xubnaha kale iyaguna la socda dhammaantiinba waxaan idinku soo dhaweynayaa salaanta horta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kabacdi waxaan idinku soo dhaweynayaa magaalo madaxda labaad ee UK ee Barmingham West Midland oo dhanna inoo xudun ah oo maanta shirkeena ku qabsanayno kulmiye ahaan inagoo sidaa uu xiriiriyuhu inoo sheegay inaynu laba qaybood ka dhiganay shirka qaybta dambena uu ugu furan yahay Somaliland oo dhan qaybtana ay tahay inaynu isku xoog wararsano muxuu ahaa xisbigeena kulmiye gudoomiyahana warbixin siino talabixin kala qaadano iyo warbixin inaga oo ay inoo cusub yihiin guddida fulinta iyo guddida laamaha oo qaarkoodna cusub yihiin qaarna guddiyadii hore ku jireen inaynu inagu ka faa'iidaysano fursaddan ka horeysa shirka keenahay gudoomiyihii guud baa jooga oo xisbiga laakiin gudoomiyihii UK ayaa jooga waan doonaya inaan mikrofon kusoo dhaweeyo xasan cismaan kusoo dhaweeyo mikrofon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامة يا دمانتي مرتدي بشرفت له مرتدي شرفت له يقول هالكم فرديا دمان سوق الكلياشة الشركة سجا هذه أدبان دي سلامية كنت هو يا حيدي إنا والله شركة هرنتي تشوفلو عبد جامع waxaan jecelahay inaan ku dheeraanin khudbadda laakiin inaan runtii siday la tahay aan waxyaabo yaroon runtii waqti dheer qaado inaan iftiimiyo sideedaba sidaynu ognahay markaynu iskuullada tegayno ama aynu koolajyada tegayno ama aynu jaamacadaha tegayno aqoon baynu doonayna inaan korarsano markaynu doonayno magaalooyinka waaweyn aynu tagno ama waddamada kale waxaynu doonaynaa inaynu u tagno rajo rajaduna waxa weeyaan iyo aqoontu waa labada waddankaagu ugu deeqi karayo sida ugu wanaagsan aada ugu noolaan karayso waxaa jirta inaynu waxyaabo badan aynu aragno oo waddankaanu kala kulanay oo ay ka mid tahay shaqo la-aan ay ka mid tahay racism ay ka mid tahay waxyaabo fara badan oo haddii waddankeenu joogi lahayn aan dhibaato ama aynu u keeni lahayn waxna aynu goynaan waddankaaguna waxa weeyaan waa qofkuna wuxuu u baahan yahay eer aad qaadato waxaad u baahan tahay cunto waxaad u baahan tahay meel wanaagsan aad seexato waxaasoo dhanna waxaa kasii wanaagsan markaad adigu ajiif garaynayso ee aan ahayn wax lagugu daray taasi markaa waxay ku siinaysaa waddanka aynu doonayno inaynu ku noolaano haddii maanta aynu ku hadlayno aynu idhaahno qof qudha ayaa waddanka mas-uulka ah qof qudha ayaan doonayna inuu hawshiisa qabto innaguna waxaynu noqonaynaa commentators wax runtii halkaynu doonayno inuu gaarno in la gaarsiinaya maaha waxaan xoog waddankan isha ugu hayaa unemploymentka iyo siday u dhibto dadka taasi macnaheedu ay tahay 60 milyan ee qof ee waddankan ku nooli ee shaqaynaya iyagu ma shaqaysanayaan waddankay u shaqaynayaan taasi macnaheedu ay tahay waddankii dadkiisu shaqaynaya uu ka duwan waddanka kale taana haddii inagu aynu gacanteenu ku samaysan weyno oo aynu kulmiye ka dhex samayn weyno oo aynu carruurteennan aynu ugu ballan qaadayno in odhanayno shaqooyin baynu siinayna aynu odhan weyno idinku maxaa waddanka u qaban karaysaan
intaynu odhanayno waddanku waxaasuu inoo qabanaya halkaynu taagannahay ma dhaafayno taan maanta aan doonayna hadalkayna aan ku dheeraado ma jecli laakiin waddada wanaagsani waxa weeyaan 1000 miles waxay ka bilowdaan one step marka labaad waxaan salaamayaa wasiirada wasiir axmed xaaji cali cadami oo isna maantayna soo sharfay mas-uuliyiinta kale la taliyaha madaxweynaha xagga dhaqaalaha axmed carwo iyo xildhibaan mahdi waxaa kaloo salaamayaa suldaanka maxamed xaaji xuseen iyo xildhibaan farxaan oo isna kasii xiga waxaan u kacay hadal badan maaha anigu insha allah xoghayn baan ahay xoghayntuna had iyo jeer waxaa laga yaabaa inay jeceshahay inay xogta xisbiga mar haddii dadkii xisbigu isugu yimi halkan ay waxoogaa dadka u tabiso markaa waxaan jeclaa in halkan kula dardaarmo mar haddii laamihii fadhiyaan inagoo guddoomiyuhu uu ka dhawaajiyey si guud u sheegay mar haddii aynu nahay xisbi doorasho guulaystay oo hawl dambe oo culus oo ballaarin galay oo dib isu habayn galay halkana lagaga dhawaaqay in ay soo baxayaan guddiyo cusub oo fara badani inkastoonu kuwaba ka nahay guddiyada cusub ee soo baxay xisbiga kulmiye UK sida sharciga sharci weynaha xisbiga kulmiye sheegayo wuxuu leeyahay xeer hoosaad sharciga kulmiye u ogol yahay xeer hoosaadkeenaasu wuxuu ka kooban yahay 29 qodob waxaan kula dardaarmayaa laamaha iyo mas-uuliyiintooda inay si buuxda xeer hoosaadka bal u dhex maraan oo ay u akhristaan una fahmaan halkaa waxa ku cad waajibaadka ay leeyihiin guddiga fulinta waajibaadka ay leeyihiin mas-uuliyiinta guddiga fulinta waajibaadka ay laamu xulaal baa la yidhaahaa kollay midhahaydu ka dhexelaysaan ana waxba idiin balballaadhin in midhahaydu ka dhexelaysaan waxaa ku jira hoyaalayey hoyaalayey hoyaalaho yo hoyaalayey hoyaalayey hoy geeyada xulasha waxaan xolowga doortay waxaan xeebta ku daajiyo xarafi la saylaac xakamaa waxaan suunkaadaag ugu xakaleeyay koraa waxaan kuugu xidhay xaalada jiraaye anigoo xaskiyo boodhka iyo xananka ka dhowraay adigoon xulaaley ridi jooji xaagashaada xaaladda yar lagu soo martay baan idin xasuusine xukunkiisiyadina baraan idin xasuusine xidhka maydka kaymii la baxay taama la xasuustay barhka xeeligeenna markaan idin xasuusiyo intaay halyay xaad lahaydu xaganaysay xunxun dhalay haasina miyaan tana la xasuusaan xasuuq hargaysiya ka dhacay xaashiyow cogosha xadhigiya lafti daadsanaa taama la xasuustay xorfadaa gabilay ninogii maharagoodene xunxun dhalay haasina miyaan tana la xasuusaan imisaa towdheer laysku xidhay xaaji iyo wilba xunxun dhalay haasina miyaan tana la xasuusaan berberaa raggi lagu xanibay xay u qorayine xunxun dhalay haasina miyaan tana la xasuusaan xamariya galbe qaarka yimi soxanka kubaaye waatanaa xuseenow furteen xagasha naasaaye xinjir baa ku marankay uu maasan yahay guddoomiyaha kulmiye UK waxaanu xasuusinayaa inay inala fadhiyaan iyaguna dee qaybta dumarku inay shirkan qayb ku leeyihiin iyaguna amoodinayna aanay ku jirin weliba waxaa maanta sharaf inuu ah haddaynu nahay reer Barmingham iyo UK ba inay nala joogto mujaahidad weyn oo runtii taariikh ku leh dalkeena waa saado cabdi amarre dumarkii
سادو وحي وأبوان وقبيضا وحي إنبا مصلي وحمد برمي لما قبوا قرما ينتاسوا وأبوان سادو وحي قصد قبيضي ظروفه كلا قديسان ودل كانوا صور مراي سادو وحي كم بداي قبليه فرق قاتي تاريخ لاني هاجركا SNM أي كم بداي إمي كنا وحي كشغي سالات نمجلية قيمة بوليسكا سومالان وحي كنت معال كان مرتقات أي كشيء سومالي ويك هذا اللي راهو ويا هذه شيء حياتي أبوانا ده أما هذه شيء سومانتا يا وتر شغل الوقتاي وحلو لي markay halka badhow waa yeeri doona hadii la ka dhigo sidaas oo socon doontaan waxaan ku noqonayaa marka halka aynu ka sii amaqaadno oday kamid ah odayaasha Barmingham oo kelmadii odaynimada magaalada iska leh abi ayaa yeeriya halkaasaan korayaa isuga بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد إله أمورها النوسخ إله أمورها النوسخ إله يا رب سنة الرب بتاع يوانا قانا هل كان بتاع يكون كدا اعتراف بين هل كان كدا إله هو إن بركينا يا نبى والحجيري وريا وهذا ولقى أنت تقرأ سوق قديسي قادنا مو فريستين إن تقرأ ويقولون يسمى تسمودي سامي إما كان لبادي إني شريك للدم يسوي سكا كلمية وماها هاي سكا كلمية إسلام وإنه أقول لها ما ذهب ويجي أو نبصي بو أقولي ما أنت نبى وحولي جواتنا ما لحد ماشى ولا فرديه سيد الله كلا سريع وقرر باي نبى وحولي مال السلطان فرديه سوق اللي يقول كعني واسدا إيا سلام يني لبودي مركز سلام تدني كلا بيكون صعبتها موسى يمسود وين هيك سوى سيرية حلي ما فرديه إن محلية هاي موسى سود وو أو سود وو أو ولي بأبتي سود وو قلت ويا كان سيران يوجد لي وريات شوقي ما أنت رجل خلا هرني الله قصي يدها الله قصي يدها كرسي الله قصار يدها قيل لنا هو أنا كديار ده سيجنال كبحيل سفريسان سوى موسى يلا نيجي نعرف إن ديار ده سكسوت ده فريستان إن كي حليمان كهاي قلت ويا هلك كهلا خير بركة الله سي حليمان هو سلامي هي يري دورشة اللي قال دونا كلمية كده يسوق ولا ترتمي دونا بس رأي واحد لما ترتمي ترينا بكرو قاعدة مالي أنا دارين هاي هتي على رأي عدي يقول من وايو مقالة هرقيسة يو حلو بتحدى هرقيسة الله يسوق صور بحاله نين دلائي يدور الله يسوق هيستوى الله دارين هاي أيوم بانيكي دارين يبقى يدور بدحي بدك توني أنا بحكي كدفن والله بقى بس بدحي بدك توني أنا كدفن والله دقائق اللي دقائق مت مجي عساس ورا البرية أي الورد سوق عندكم بدار سنة وحوار هرتي مضح هم يتشلوا هوري يتبوري بربر ساحة بدحي بدك من أنا بحكي كدفن والله بس ما هرتي مضح أرجع واحد دارته دوي كبلارات وتتيسير أي هدي الله يلا بدل ما كان دارين دورة دوان يصير يسوي مركا عادنا ويك عيسارو وحلينا بتجيو تعيا لو ما قرناس لكم أبتجيني مو تعيا نكنا قرناس ما نودجيا مو يستحضر إن وده وقت وين نبيه هين بدل ما هذا العيد قالوا بدل مهلا ما راني سوا عشان من هذا صوت هذا أنت هذا صوت هذا الكيورن تعادي عبد الله عبد الشوي تاني بود وانا قاعد يتيم مسلمية لتها مسلمان يسقون بمانته وحولي الله يوم عدا وجينا برجوجو
barjaja iyo quraarad buur lagu tuuriyo bisad uu jiiray tareen iyo badaleel ku dhacdiyo buur gol la afoofiyo beed maroodi ku joog beed maroodi ku joog ka soo haray beed maroodi ku joog ya Allah oo baabah ka yeelbo de xorownayna oo weynaga wanaagsan oo imaka inuu wixii noo soo dhow waxaynu ku garanaynaa aan isu soo dhawaan oon hadalkaba gaagaabine waa tan imaka mucaaradkeeni maxaafidkeeni waynu wada soconaayo garbihi aynu sidaa u gudhin jirnay la iska keen haystay nin baa wuxuu wardaadina ku yidhaahday abkaa la gub oo tiri adiga abkaa la gub ood ka baqatay buuri wayna tiraabo abkaa iyo abnaqaa iyo asodoodan kaaba la gub markii roobka inoogu marnaa ee abkaa la gub iyo abkaa la gub aynu isweydaarsanayni asodoodankii la gub aynu marinaynaa maanta waxaana laga yaabaa in ilaahay subxaana watacaala inoo dhaqdhaqaajiyo ay dhag inoo noqoto awal waataynu diinka ahayn diinkan maarata diinka intuu madaxa la soo baysa daaqunga soo jabsoo jiray intuu madaxa la noqdo geel iyo nirgababe imaka madaxii la soo noqon mayno innaga indhaa ku cadayna meel ku cadayna indhaa dadka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim marka horeysa saacaduna saacatul khafuurkii bay maraysaa waana lagu raagay marka ma dheeraynayo waan soo gaabinayaa number 1 markii hore waxaynu yidhi shirka intii hore kulmiyaa lahaa markii dambena waa Somaliland deyni marka hadda axsaabtii loo qoonsan yahay baynu ku soo daray waradii koob aynu soo darinay waxaynu ku soo daray labadii xisboo kale garan maayo goor barnaamijku kala wareegay oo aynu isla kulmiyeynay ma garanayo anigu waxaan salaamayaa saddexda xisbi cidda ka joogta oo marti sharafta oo meesha timid marka u horreeya waan idin salaamayaa qoladii saaxiibaday na sidii loo soo dhaweeyey baan ana soo dhaweynayaa anigu qaarkood kulmiyaan u haystay laakiin iyaga hadda waa tii la yidhi sidyarati baa lagu xisaabtamayaa maanta markay ku dhawaaqeen unbaa looga xisaabayaa maantadan wixii hore waa ka kac baa la leeyahay runtii rag waxtara wax ku oola waxqabada oo aan shaksiya naqaano oo aad loogu diirsan qofkii yaqaanaaba ku diirsanayo weeyaan xogaa nasiibka naftiisu door buuxiyaanaya saaxiibka muusarada la kaftamayo waxaan kitaabadii hore nin nasiib xunuma ekid marka khayraad kalena waa soo socdaan baan markaa lahaa mar haddii qoladii Barmingham inoogu horreysay ay ku dhawaaqeen dad cusub oo hadda kulmiye soo galay asarka bana adduunka raganimada iyo dadaalkii wax loo baahan yahay laakiin nasiibka kama soo hadho marka waxaan jecelahay in ilaahay sidaa nasiibkiisa ilaa aynu guul ka gaadhay inuu hagaajiyo baynu jecelahay wax kaloo hadda khudbada meesha ka furan ma jiraan markii dhaweyto iyadoo xagga shuqulkii axsaabta lagu jiraa muuse igu riixay aniguna markaa sidaas waa ka hadhi maayo hadda ku soo riixayaa oo waxaan leeyahay inta aniga iga maqan oo ii hadhay iyo intaadiiba isku darso ku soo dhawow guddoomiye waxaan horeysiinayaa raggii aan ii sheegay waan jecelahay inay si degdeg halkan igu soo istaagaan weliba ragga anigu waxaan u sidaana waa aad badan gaar badan saaxiib u nahay in badanna waa tabayey in badanna waa waday laakiin alxamdulillah maanta iyadoo mujaahid kii weynaa guddoomiye xisbigu joogo inay maanta ay iclaamiyaan inay ku soo bireen xisbigeena waxaa ugu horeeya wakiilka West Midland oo garanaysaan Cabdiraxmaan cali waxle ayaan u yeeraya Cabdiraxmaan soo kelmadiisa oran doona ayaa haddana waxaan ku darayaa cabdiqani saaxiibkii cabdiqani cumar عبد الشاور وقال لي سام وبرمنغهام ورجع إن بدن بام لباريا والحزب الله صوغا والحمد لله ما تهم حزبي كسو بيران عبد الشاور كسو استووا الويريا استبعدوها وعماها أنتوا كمية
تبع الوادر كلي الله يرتوى يا ما رجعسي وارج ما تبصر بيري حسبك والرسول ويننا كلمتنا وحنجي يا عبد الرحمن على واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان والسلام على تذكر ورسالة. من يوكلي لو يريد. كنت تذكر كم يقول لو يريد. نبى على إبراهيم الحمد لله نيجا سرير كمون وقبله. أمير عمر حاكم باليرية عمر حاكم. هذا كل دورنا يودا. شوي بسم الله الرحمن الرحيم. دمانتي الشعب وينها سمعتي سجل وحد موسى بيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا صاحبي وكيشان محل إلى إن الكلمة إلى هو. runtii waxaan maxaa la halkan maanta ka cadeynaynaa in ay timi kalifaad aan ugu soo biiro xisbiga kulmiye بسم الله الرحمن الرحيم أرتا قلنا في بيبي ها وحنا مش وحنا أرتا ده أدبنا ونا عظمية وكين مساعد إن بدنا نوصل شيء فقراء لكن فقراء لما برا ذكوا هذا شيء صار فقراء والله بيقولون قف ما هو متأكد من الموت هو برا بدك يقول أوكي إنك أنا واحد يسير واحد إنه صح بسوق بقبله marka waxay yaala wixii lagu hadlay oo inay noo soo qodbeeyo marka hore ma hadda qoon ku cilmiya intii waa ku raacsanahay intii ducayso waa ku raacsanahay gabaygiisa hadana waa halkiisii saadana waxa la qorada ugu jooga gabayasha qaar kood ka daa yaa la xusuusnaynaya ku qaaxa waa waxaan la hadlay wanaagsan oo qabsi asane qaar badan waxa jid warweeyay arkay saadoy oo gabayga qaaxa ka yareeyay inaga ma waxba aad u qanayna waxaan soo ururaya wixii la yiri annaga waxaan afartay waan qaadanay hadana qoladii xagga ka timi annagu wixii aan isreeyo waxaan filayaa wax ma qaataan qodobo way waan qoladii ugu jooga dhowr arrimood inoo ilaaliya marka waa isbeddelashada guud dadka Soomaaliland isbeddelashada hormaayo haddaan qoysku dhisnayn marka in qoysaska isbooli la adkeeyo oo qolada dhalinyarada aad ugu tacabtaan oo qoysaska dumaya la yareeyo oo la isugu tago oo xal loo helo community aad uga shaqeeyo oo waayeel kula ka shaqeeyo dhalinyarada tabro tanna way hadday qoysaska laga dumaan way dhahayaa maaya community bishoona ilmiina talabaad waxaan ku talin lahaa dad badan baa jooga carruur badan baa joogta inaan carruurta waxbarashadooda aad iyo aad u dadaan waayo adduunku maanta aqoon ugu socda ciddii waxbarato baa beri adduunka mustaqbalka u talin doonta jaanis oo fiican inta qurbaha joogtaana tacliinta oo inankii gudaha joogay mar baasaboor ma haysto meel geeyo lama hayaa maanta waxbaran lahayn marna waa qaali adduunka halkii la geyn lahaa dadkina dhaqaale badan gudaha inta bixin kartaa way yarta markaa daayarta halkan joogtaa waxay haystaa jaanis aad u wanaagsan waxaan ku talin lahaa waalidka iyo community-ga ha keeneen talo horle ama mechanics horle oo ay ka fikreen oo dhalinyaradii lagu dadaalay intooda badan inay aqoon sare hesho oo jaamacadaha hersana intaasoo iga dardaaran maxaa ka rabnaa waa soo ururaya qolada joogka intaasoo iga dardaaran danteena guudetiina annagu idinka maxaa ka rabnaa dardaaran kala soo ururaya ka warreeya waxa weeye inaad sii xoojisaan onlayntii aqoonsiga Soomaaliland waan idinku ammaanaynaa taariikhda qaaligaha baa ku leeyahay haddii qoladii qaaxo xabadii dhiiggii soo shubtay xaggaa kusoo aasay kaana waan ugula jirtay oro barafku baa taagneed وأنا برا فيها حمد يقرأ عروس وأنا أقول أطلق معك بحبا قليلا صار السنة بعشر أودي بركة أنا تيسي حجة سير الله طول هذيك هالسؤال وياه وقرك وصارتها والفضل ده هلا بعد وحنا لها دور قربها واحد وكان واحد شيء كثير هو تيسي هذا كم يسوي تاني كان حاجة هي رسول سيسان سيس بركة كبيس أما أنت الله سيس مين لا بيت جالس تقعد هذا كوميدي ترين هم رول واسم بيه مركب وحنا لها مركب وجه هالمن كذا
waa la xaqiijiyey iyagii dhalinyarada ayaa howlaha xisbiga ku ilaahay dadka qaar ma awood u siiy awoodda markaa waxaan lahaa qaybta hawsha xisbigana dumarka aada iyo aad qaybi ah laga siiya taladeedii waxtarkeeda idin hanu xujino dheeftaydan hanu waxba laga siin hanu xajinaya awal hore waa nabadii odayaashii waa noo roonaydaan dacwadda naga yareeya waan dadaali doonaa dacwadda badan waa in sawirkii daafici karaa hadda xagga naga xadfurtaan xagga siyaasadda taageerada waxa weeye inaynu ilaalino qodobkii ugu dambeeya waxa weeye aan ka codsanayna kolba qofku soo dhoofo meel kasta laha tagay inuu lacag kala imaadmo haysano wada xaggaa joogta waanu tuumaynaa deetana waxaanu isleenahay dalka shaqalaanta way keenaan lahay shaqaalaha dowladdana mushaharka u kordhi lahaa haddii labadaa la helana musuqmaasuq uu yaraan lahaa hadduu musuq yaraadana dowladdeedina hagaag lahay markaa malaha qoladan warbajoogu idinma hagar bixine hadday dalka maal geliyaan oo warshada idin dhisaan oo dadka idin shaqaaleeyaan oo lacagtan gidaarada sheegaysay saalo ku jirta ee gidaarka ka qaadanaya dalka geliyaan nimankaas waxaan isleeyahay wax weyn baa hagaag lahaa markaa waxoogaga meelahana ku haysaan taasee beritu bay taba kala noqon doontaa investment waa samayseen laakiin waxaa mudaa investmentkii hore ragga nijo badan ku dhacay laba meelood baa la geliyay investmentka mid wuxuu ahaa waxaa la yidhahdaa real estate guriga guryaa gelisay guryihiina may soo saaray lacagtii nin walba intaasoo deen iyo hawl qaati buu guri geliyey ma soo saaraa weliba waa shimaan ayaa u dheer yalankii biyo geliyay malaha markaa waxa wanaagsan lacagtii inaan u fikraa inay lacagta shaqayso oo la sameeyo wax lacag socoto circulate ama warshad ama service wax dadkii dhaqaajiya in la geliyo lacagtii oo laga daayo lacagta real estate la gelinayo waayo imika ninka lacag ama dhul buu geliyaa ama daar buu dhisaa dhulkina waa sees ninkaas wuxuu ku rajeynayaa inuu meeshaas beri un ay kor u kacdo ama beri u baahdo laakiin dhul buu xanibay marka waxay maanta inuu helo fikrad lacagta ay wax ku tarta socoto oo dalkeena wax ku tarta adigana dee wax kugu soo dhunto markaa ragga niyad badan baa ku dhacay kii hore uu fadhiyaa tu kale bakeeni karo talaabada ku dhacda waxay noqotay maalin sanadii u horreeyey nin walba lacag buu cilmi ama isagaa shirkad yar kale ama mid ay ku yar kalsoonaa si uu walaalkii saaxiibkii si kale waxbaa meel loo gelgelay wax loo dhigay wadana waxaa ku dhacday sidii qoladii magaalada soo jirtay geela miya kula jirtay wadaashii hore ee da-dana ka horreeya burciyaa geysay deganaa isagoo dukaan iyo macaan haystuu geel ku dhab jiray xaggana deetana geela khaatiya marka daba joogsan jiray kaagii baa dhintay geelii baa aroon inay kuu kabanaay hashii dhashay iyo tii dhimatay dhawaayana waa tiisi waanu sii yaraada deetana wuxuu ohan jiray kubbaha gale qaado igala tag deetana waxa wada qulajoog markuu nin halkaa waxu dhinto ee wixiina la idhaha way khasaartay lama hayo nin baa intuu lacag daroore mid oranay gaari noogu shaqeen gaari waa markato waa taxi ninkana waa wadaado ee markato muxuu geeni macaradu kama suurta meesha kaa ugu sheego marka dambe waxba qaado wax dambana soo dirma iga tag war waxba meeshaas ka geenin bal xaggaa shaarqiya guriga ka dhisa shaarqada lagaa macasho way oona in xagga qaadaha loo siiyay marka waxay la tahay fikrada aynu keeno waxaanu haynaa wax u dhaqa jiraan taana aan lagu dadaalo aad iyo aad baa mahadsan tihiin ninkii nagu wanaajay qoladan mahadnaqaya qolada halkan fadhidana ee calami iyo kamidkiin waxaa leeyahay beritan intaan aynu fadhi doonaa berista waa saacina xaaj maayo jawi tago wax ku qabanaya wax badan baa isaa ka dhigayaa wixii aan berita kaa daabacaya malaynu hadal u helaan waxaa la sheegi doonaa yaa la yidhahdo waayo halkaa hadalka bilaabay aad iyo aad baa mahadsan wasalaam guddoonsiiyo xubnaha halka ku qoran haddii laga ka dhigo waxaan u yeerayaa si degdega maxamed cabdinuur waxaan u yeerayaa mar kale cabdiraxmaan cali waxle guddoomiyihii guddiga xawaalada